الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، mar labaad insha allahu tacaala iyo muxaadaradii labaad ee muctamarkii saddexaad ee ururada islaamka ee scandinavia waxaan insha allahu tacaala aan idiin soo gudbinaynaa muxaadarada labaad ee ciwaankeedu uu yahay alistraatiijiyatu alcamal alislaami aw istraatiijiyatu alcamal alislaami fi somaal, istraatiijiyada camalka ama howlaha islaamka ee soomaaliya. waxaana maanta martisharafna noo ah halkaana muxaadir noo ah doctor cali sheekh abubakar oo macnaha weeyaan qaarkiin kutubtiisa aada aragteen ama muxaadarooyinkiisa aada maqasheen. doctor cali waxa uu yacni marxaladda dugsiga hoose iyo dhexe iyo saraba ku qaatay dalka soomaaliya. waxaana ahayd yacni marxaladii xigtay inuu jaamacad u aaday waddanka sacuudiga, taa oo macnaha weeyaan rag badan oo yacni ducaad ah ee soomaaliyeed ilaahay subxaana watacaalana ummadda soomaaliyeed ku anfacay ay u noqotay golihii ay kasoo baran lahaayeen duruusta saxiixa ah ee diinta islaamka. kadibna waxa uu ka qaatay marxalada jaamicinimo jaamacat alislaamiya ayuu kaga baxay, isla markaa isla jaamacadda laftigeed buuna ka qaatay darajada magisterka ama magisterka iyo doctoraga labadaba iyada ayuu kasoo jiray. doctor cali marka uu dhammaystay marxaladiisa yacni ahaa darajada jaamicinimo iyo tan magisterka iyo tan doctoragaba, kadib waxa uu kicitimay xagga iyo magaalada riyaad oo halkaa uu noqday mudaris ama professor dhiga jaamacat malik sacuud biriyaad ee magaalada riyaad ku taala, qeybta thaqaafada islaamiga ah, kuliyada tarbiyada iyo tacliimta ama waxbarashada iyo barbaarinta. wuxuuna ka ahaa professor muddo 10 sano ah. kadibna macnaha weeyaan sanadkii 1993 oo aan ahay muddo saa usii fog ahaydna kuna beegan waqtigii ugu horeysay mu'tamaraadka iyaga la qabto, ayaa waxa uu wareegay doctor cali waddanka soomaaliya isagoo doonaya inuu wuxuu soo bartay u gudbiyo dadka soomaaliyeed. welina tusaale ayuu u yahay culimmada soomaaliyeed ee dalka soomaaliya ku noqotay iyadoo dalka dabadiisa shaqo iyo yacni raaxa ka heli kara, waana wax lagu daydo wanaagsan. wuxuuna hadda u yahay madaxa ama maamulaha markaska ama xurunta cilmi baarista ee fanka daraasaadka insaaniga ee macnaha weeye muqdisho. macadkaas oo ah macnaha weeye macad lagu yaqaano muqdisho laga garanayo, isla markaana daraasaad wanaagsan oo xagga islaamka baxsha. magaciisuna sida aan idiin soo sheegay uu ahaa. howlihiisa soomaaliya uu kaga guda jira waxaa ka mid ah inuu ka mid yahay guddiga heshiisiinta ee yacni soomaaliya ee yacni meelo badan ee soomaaliya ka mid ah u tegay inay yacni dib isugu soo heshiisiyaan ummadda soomaaliyeed ee mashaakilka iyo shaydaanku isku diray. waxaana macnaha weeyaan la yaab leh ama yacni idiin soo gudbina in marar badan ay noo timaado asilooyin kala gedisan oo ku saabsan culimmada soomaaliyeed wax ma qoraan. arrintaasaan galabta iska tiraynaa. doctor cali waxa uu yahay alwaxiid fi hada alcamal ama yacni min almarmuuqiin, dadka ku hormaray camalkan macnaha wax qorista. wuxuuna leeyahay kutub qayima oo ay ka mid tahay addacwa alislaamiya almucaasira fi lqarni alifriqi, dacwada islaamka ah ee casriga ah ee geeska africa, kagana hadlay dhacdooyinkii foosha xumaa ee soomaaliya ka dhacay, uuna ku iftiimiyey habka islaamiga. waana kitaab daabacan oo mutadaawil ah, qayimna ah macnaha weeye ninkii akhriyana uu garanayo. kitaabka labaad ee uu qoray doctor cali waxa weeyaan asoomaal wajuduur ma'saat araahina, waana kitaab silsilad ah. soomaaliya iyo xididada dhibaatada maanta ka taagan waa silsiladii koowaadna way soo baxday, silsiladii labaadna weli lama daabicin. wuxuu qoray kitaab kale oo asna la yidhaahdo macaalim alhijratayn ilaa ardi alxabasha, astaamihii hijrooyinkii labadii hijro ee bilaada xabasha ay saxaabadu ku tageen, astaamihii ka haray ama iftiinkii ka soo haray. wuxuu kaloo yacni hadda uu diyaar u yahay inuu dhowaan soo baxo ama uu yacni kitaab qoran ah, kitaab la yidhaahdo atharu shiyuuciya fi lmujtamac alislaami, raadka ay ku lahayd nidaamkii shuuciyadda ahaa ee qaldanaa ee mujtamacaadka islaamiga kaga tegay waddan muslima uusan taaban ay yar tahay. kaana macnaha kitaabkaas weli lama daabicin. kitaabka macnaha weeyaan kalena waxa weeye asoomaal calaa muftariq duruq, macnaha weli ayuu gacanta ku hayaa, welina ma uusan dhammaynin kitaabkaas. waxaan jecelnahay inuu dhowaan soo baxo. waxaan leenahay doctor cali
ku soo dhawaado manasada hananu maartaa noo jeediyo muxaadaradii aan ciwaankeeda hore u sheegnay istiraatiijiyada howlaha islaamka ah ee macnaha weyn Soomaaliya ka jira fariitafadal mashkuura بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxa lagu farxale idinka oo kale oo badankiina mar aan sii fogeyn ka yimid dhulkii hooyo inaad kulan sidan oo kale samaysaan wax aad loogu farxo weeye ma hadna waxa iska leh ilaahi idin garansiiyay midda iyada waxay daliil u tahay waxaan rumaysnaan jiray ilaa yaraantaydii oo ah shacbigan Soomaali ilaahay inuu ku ilaaliyay islaamka geeska Afrika waxaana rajaynayaa oo hadda aan amal weyn aan ka qabaa in shacbigaas dawrkii uu ku lahaa geeska Afrika uu sii gudbay oo ilaahay uu ku soo hanuunin doono in badan oo Yurub iyo America iyo Australia taasina waxa weeye waxaan iska leeyahay ma ahe wayba dhacday waxaan aad iyo aad ugu mahad celin ururada ama jamciyaadka islaamiga ah oo dalkan ka dhisan oo iyagu soo qaban qaabiyay shirkan qiimaha iyo qaayaha leh waxa aad iyo aad u mahadsan dadka ka soo qayb galay oo ka yimid qaaradda Yurub Scandinavia ba ugu badnaato iyo martida sharafta leh ee meelaha fog inooga yimid intaba way ku mahadsan yihiin waxaana leenahay jazaakumullahu anna wa 'an al-islami kull khair inta haddii aan ka gudbo mawduucan ku saabsan qaab dhismeedka mashruuca islaamiga ama waxa uu noqon kara astaamaha iyo sida loo hirgeliyo oo tilmaamo yar laga bixiyo waa mawduuc aad iyo aad u dhib badan waxaan ogsoonahay inagu waxaan ka nimid ama aan ka samaysanahay shacbi wada muslima diintana aad iyo aad ay lafaha uga gashay marar badanna waxaa la isku khaldaa dambiyada faraha badan oo dad yar oo mujrimiinii ay sameynayaan ayaa la isku xambaaraa markaas wax alla wixii dadweynihii dambiga aan lahayn oo dhan ayaa lagu xambaaraa taasna waxaan rajeynayaa inaynan noo noqonin usluub aan isticmaalo ama jid aan marno dambiga in la camimo islaamku ma ogola aqliga bini aadamkuna ma ogola waxa way dambiga wixii sameeyay ayaa sameeyay wixii xunna isaga baa xun idan shacbigaasi waxa way wuxuu ku caan baxay taariikh soo dhan marka la yiraahdo wanaag islaamnimo isjacayl iyo midnimo waxyaalaha yararka ah ee maartay soo dhaxgalena waxyaala dhibaato keenay weeye laakiin waxa la hubaa sida looga bartay shacbiga Soomaalida inuu ka gudbi karo waa la hubaa kolka laga hadlayo mashruuca islaamiga ama hawsha islaamka iyo dadka wada markaan ka hadlayno marka u horeysa hadafka uu leeyahay mashruuca maanta aan meeshan kaga sheekaynayno ee shirkan loo qabtay iyo shirar badan oo hore danta uu leeyahay maxay tahay ma wuxuu rabaa mashruucaasi waxyaalo islaamku waxaa jira fara badan oo laynaga rabo ilaahay awaamirtiisa iyo nawaahidiisa way fara badan tahay ma wuxuu rabaa in uu ku ekaado mesela masaajid oo kale inuu dhiso waa amal wanaagsan oo dhici karta ruuxii sameeya isagoo ilaahay dartii ula jeeda inuu jannada ku galaba sida xadiis nabiga ay sugayso ma madaaris laga barto islaamka iyo culumta kale ayuu mashruucan u jeedaa ma isbitaalla dadka lagu daaweeyo u jeedaa ma agoonta iyo haweenka la silcaaya inuu wax u taro miyuu u jeedaa dadka dhaawaca kumaankumka ruuxa ee ku laxaad beelay inuu wax u qabto masaas u socdaa mise wax ka sii weyn baa jira
waxaa la hubaa inta aan sheegayno iyo in badan oo inaan sheegin intuba inay tahay camal wanaagsan oo mashruuca islaamiga qayb ka mida weeye waa la hubaa maxaa jira intaas iyo waxyaalaha badan ee islaamku ina farayo nolosheenna qayb ka mida weeye inta hadda aan soo sheegnay dalkeenna way ka jiri jirtay mar kastaba dad samafalayaala oo aad iyo aad u dadaalana mar kasta way jiri jireen idan maxaa cusub maanta danta aan ka leenahay mashruucani maxay tahay maadaama awal hore masjid waan dhisan jirnay dugsi quraan ah ama golana waan oodan jirnay agoonta waxbaa la siin jiray ruuxa maaragtay curyaanka waxbaa loo tari jiray dadka maaragtay waa la martigelin jiray wax inagu cusub ma aha marka mashruucani muxuu rabaa mashruucani wuxuu rabaa intaa wax ka sii guda weyn buu rabaa hadday intaasi ahayd in lagu qanacsanaa shalay oo ruuxu markuu tukado ama markuu masjid dhisto ama hadduuba ictikaafo oo masjidkaba uu maalin iyo habeen iyo 10 beri iyo ramadaanka oo kale uu iska deganaado ilaahay saa ku caabudo mashruucan maanta aan meeshan u fadhino oo dadka Soomaaliyeed iyo caalam islaami oo dhanna ka taagan intaa kuma kaaftoomayo mana ku qanacsana intaas waa in wanaagsan laakiin kuma qanacsana ee wuxuu leeyahay himilooyin aad iyo aad u fog waxyaalaha ku saabsan in wax la bedelo ayuu u socdaa mashruucani wuxuu u socdaa in wax la bedelo waa mashruuc xadaari ah oo ilbaxnimadu meesha ay ku dhamaato way islaamku meesha ka bilaabato iyo tay ku dhamaato waa islaam ilbaxnimada runta islaam baa wada idan waxa weeye xadaaro waxay u baahnayd oo dhan ayuu mashruucani rabaa inuu sameeyo ugu dambays xadaaro waxay u baahan tahay jawaani fara badan ama dhinacyaal fara badan nolosha bini aadamka in la iska taago u baahan tahay oo dhinacna waxyaalaha maadiyaadka ah oo la taaban karo ay ka mid tahay dhinaca kalena waxyaalaha nafta bini aadamka ah iyo se u samaysan tahay bay calaaqa la leedahay dhinaca waxay calaaqa la leedahay waxyaalaha xununka oo ilaahay uu naga reebay subxaanahu wa tacaala sida khamrada iyo zinada iyo mukhadaraadka iyo waxaas caalamka hadda rogay in lala dagaalamo idan waxaa weeye sida uu qur-aankuba inoogu sheegay oo kitaabkan inuuna waxba dhaafin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu meelo badan ugu sheegay oo axaadiista nabigana meelo badan loogu sheegay siirada nabigana ay meelo dhammaanteed ay noo tarjamayeen sidaas oo kale lana soo tajribeeyey oo wuxuu soo maray mashruucan imtixaan ayaa waxaa la og yahay mashruucani inuu yahay mid aan yeelaynin diinta inuu ina qaato ina ka tago taas ayuu diidayaa idan hadday awal hore jireen dad rumaysan in diinta ina laga qaato ina laga tago inkastoo islaamka ma bannaano taas sida ilaahay u leeyahay afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdin sida dadkaa lagu yidhi baa innagana linagu leeyahay taas tabaan ma bannaana laakiin waxaa jiray fahmi dhaawacmay oo dhibaato badan ay soo gaartay oo ah in islaamkii in fara badan oo ka mid ah la iskaba halmaamay marar fara badan idan waxaa weeye hawsha islaamka eed maanta wadaan waxaa weeye waa hawl aan ku kaaftoomi doonin meel ay ku istaagtana aan lahayn ilaa kownka dhan ay ka bedesho idan waxaa weeye bini aadamkao dhan ba waxaa la rabaa xadaarada islaamka in la gaadhsiiyo idan markaan soomaalinahay innagu oy dhibaatooyinayna haystaan shaki waxaan lahayn dhibaatooyinkeenna waxaan ku xallinaan u baahanahay marka u horreeya markaasaan bini aadamka kalena inaan wax u sii tarno ayaan u socnaa idan mashruucaas waxaa weeye waa mashruuca ilbaxnimada ah oo raba nolosha dhan inuu tilmaamo oo nolosha dhan intuu isagu hanuuniyo inuu isagu hogaamiyo ugu dambaysta oo wax alla wixii ay keentay jaahiliyaadkii hore lagu dhaqmi jiray iyo tamaanta ina haysata in si tartiiba oo cilmi ku dhisan caqlina ku dhisan iyadoon laga boodaynin meelo aan laga boodi karin marnaba aan laga boodaynin ayuu wuxuu rabaa inuu sidaa wax u bedelo mashruucan marka wuxuu rabaa isbeddel inuu keeno yani isbeddel oo xoog leh inuu keeno ayuu rabaa oo nolosheenna oo dhan ku salaysan mashruucani wuxuu rabaa inuu wax isboonaysiiyo waxaa weye nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu inoo sheegay boqolkii sanaba in dad mujadidiin ay soo baxayaan hal ruux bay noqon karaan dadkaas waxaa dhici karta inay boqolaal noqdaan waxaa dhici karta inay noqdaan kumaankum ruux waxaa dhici karta idinkani hadda mujadidiin baa tihiin maxaa jira wax aan la aqoonin ayaa diinkii dib u soo noolayseen marka tajdiidku ma aha hal nin oo caalimo intuu soo baxo keliya isagu wax sameeya
oo dad ku dabafaylaan keliya ma aha waxaa dhici karta ruux inuu hal mas'alo oo islaamkan ku saabsan oo noloshii saxda ku saabsan inuu isagu soo cusboonaysiiyo oo meesha uu ka soo galo dadka wax cusboonaysiiya mafhuumka islaamka laga tago iyo nolosha saxda dadka cusboonaysiin inuu soo gala dhici karta waxaa dhici karta hadda sida jamciyaadkan faraha badan ee shirka qabtay oo kale ee wanaagsan waxaan ku tilmaamaynaa inay yihiin jamciyaad islaamkii cusboonaysiinaya dalkan qaar bay soo islaaminayaan in badan oon dhulkiiba mutadayin ku ahayn bay meesha islaamka ku barayaan waa nooc tajdiida waxa alla waxa jira ee maanta nashaad ka socda xawla alcaalam oo xarakaat islaamiya ay wadaan oo dadka ducaadii ay wadaan oo la isu dili waa tajdiid qayb ka mid ah weeye idan mashruucan islaamiga wuxuu rabaa inuu wax cusboonaysiiyo oo nolosheena boor badan baa fuulay islaamku taban ilaahay baa ilaaliyay oo lama bedeli karo saad ogsoontiinba laakiin waxaa fuula mararka qaarkood markay dadku islaam ka fogaadaan ayaa dhibaato ayaa dhacda markaasaa laga fogaadaa islaamkii markaasaa macnihii islaamku lahaa ayaa duugooba fii nufuusi innaas dadka quluubtooda ayuu ku duugoobi in islaamku isagu markasta waa jadiid marka waxaa la rabaa wax boorkaa ka tirtira macnahana kusoo cusboonaysiiya marka waxay noqonaysaa nashaad cusub iyo xarako cusub iyo dadaal cusub iyo halgan loogu jiro in la iska bedelo noloshii xunta ahayd in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim oo nolol cusub la galo waana shardi waxay u tahay taasi ummad kastoo rabta inay nolosheeda wax ka beddesho oo si xun intay ka beddesho si wanaagsan u beddesho waxaa la hubaa inay shardi u tahay inay niyeysato oy go'aansato inay iska qaado dulliga go'aan waxaa weeye hal ruux waxba tari maayo in yarina waxba tari mayso ee waxaa la rabaa inta rabta inay wax beddesho mar kastaba inay ka badato inta xumaanta wadda haddii taa laga badan waayo tajdiid ma noqonayo maxaa jira in yar baa soo haraysa intaasina waxma bedeli karto marka sida maaragtay dadka yar kolkay ee wanaagsan mujtamaca ku dhex jira markay ku guulaysan waayaan inay isbeddel keenaan ay wax cusboonaysiiyaan halaagaas bay la galaan sida haddaba ku dhacday dalkeenna kumaankum ruuxoo beri ah oo carruur leh oo haween leh oo oday leh oo dad dhallinyaraa leh oon iyagu dembigan qayb ka ahayn ayuu daadku la tegay maxaa dadkii la rabay inay wax cusboonaysiiyaan oy fasaadka la dagaalamaan ma ayna ku guulaysanin inay dad sameeyaan shirarkan oo kale iyo kuwa dal gudihiisa ka socda ee wanaagga u socda in lagu hurinaynin masaa'ibtii nagu dhacday ayaa waxay qayb xoog leh ka noqon karaan abaabulka loogu jiro in wax la cusboonaysiiyo idan waxaa weeye mashruuca isaga waxaan ka rabnaa oo ruux kasta oo qayb ka ah saxwada islaamka iyo dacwada ruux kasta oo qayb ka ah ruux kasta oo muslim ah oo islaamka jecel ruux kasta oo caaqil ah oo isagu raba inuu wax toosiyo islaamka waa loo wada siman yahay waxaa waajib ku ah inuu ogaado islaamkani inuu yahay diinta loo soo dejiyay inay dhibaatada bini aadamka kaga baxaan liyukhrij annaasa min adulumaati ila nuur yani waa meesha lagaga bixi lahaa haddii kolka taa aan laga wada qayb qaadanin qayb yari waxba kama qaban karto waxaa la hubaa marxalada aan maanta marayno inay tahay marxalo aad iyo aad u adag waa la hubaa taas dadka raba inay wax beddelaan oo wax ay cusboonaysiiyaan oo ummadooda iyo lafahooda iyo caalamkaba dulliga ay ka qaadaan daban waxaa laga rabaa shuruud mucayana shuruud gaar ayaa laga rabaa waxaa laga rabaa marka u horraysa inay fahmaan maantay nool yihiin berri lama huba inaan noolaanayno maanta waxa socda inay si fiican u fahmaan waa lagama maarmaan idan waxaa weeye marxaladan aan marayno inaan fahamno waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu kaalmayn kara mashruuca islaamiga inuu guulaysto ayay ka mid tahay caatifadu waa wax wanaagsan inaad mutadayin tahay waa wax wanaagsan inaad tukato way wanaagsan tahay inay gabadhu xijaabato way wanaagsan tahay waa qayb laga rabo ruuxu inuu sameeyo waxaasoo dhan laakiin haddii la halmaamo qawaaniinta ilaahay iyo sunanta ilaahay qayb ka mid ah oo ah waxa kugu hareeraysan inaadan si fiican ula soconin waxaa dhici karta adigoo niyo fiican oo dadka dhan ugu taqwo badan waxaa dhici karta mashruucii aad waday in dhexda in la ishortaago oo la baabi'iyo oo meesha uu ku istaaga ayaa suuragala caalamkana way fara badan tahay taas mashaariic aad iyo aad u fara badan iyo hawlo fara badan oo dadku soo qabtaan ayaa markay garab maraan sunanta ilaahay iyo jeedkaa loogu talagalay inuu islaamku maro oo hawsha bini aadamka o dhan ay marto marka uu ka leexdo oy ka mid tahay fahmi xumada dadka qaarkii mararka qaarkood
cadowgaaga oodan fahamsanayn wuxuu adeegsan oodan ogeyn meelaha lagaa soo gali karan ogeyn inaad tahay ruux iska niyo wanaagsan oo markii aarta dadkii oo dhan tukanaya baa iska jiboonaysaa markaas waxay kula noqonaysaa inaad wax walba samayn karto maya waxaa la rabaa inaad fahamto cadowgaaga quwadiisa meeshu kaa soo geli karo dhibaatooyinkaasoo dhan waa inay madaxaaga ay si fiican u galaan haddii kale adoo niyo wanaagsan ayaa lagu shaqaysanaya sayidina cumar radiyallahu anhu ayaa waxaa laga sheegay hadalladiisa waxaa ka mid ah lastu khibban wala alkhibbu yakhdacuni anuu nin xun ma ihi buu yidhi khaa'ina laakiin nin khaa'ina inuu khayaano ma ogoli waxaa la diidi niyo wanaag intaad waxaaga ku salaysa keli ah inaad iska socotaa la diidayaa maya meesha aad mari intaadan dhaqaajinin baabuurkaaga ama dameerkaaga ama faraskaaga ama awrkaaga ama lugtaba markaad socod maagto intaadan dhaqaaqin waa inaad ogaato jidka aad marayso idan waxaa weeye inaad marxaladan aan maanta marayn inagu waa marxalo aad iyo aad u dhib badan waxaa inaga burburay shacab aad isu jeclaa ayaa maanta isnacab waxaa la abuuray mujtamac alkaraahiya dad isnacab bulsho isnacab baa la abuuray waxaa lagu bixiyey inay isnacdo xoolahoodii baa lagu bixiyey xooggoodii baa lagu bixiyey dadaalkoodii baa lagu bixiyey 30 sano in la abuuro dad isnacab ayay soo socotay 35 sano hadda mari 36 sano mari intaa waxaa la abuurayay bulsho isnacab in la abuuro waa lagu guulaysta marka haddii marka dadka niyada wanaagsan ee dacwada intaa soo waday ay maraaxishaa hore ama meelaha la soo maray hadday si fiican u fahmi lahaayeen waxaan rumaysanaha inay marar badan wax ka qaban kari lahaayeen laakiin waxaa weeye waa niyo wanaag alxamdulilah amuurtu way fiican tahay sheekhi kitaab buu aqriyaa dugsiga waa furan yahay gabadhu waa xijaaban tahay hawshu waa iska wanaagsan tahay khayr baa jira bas intaa keliya kaafi maaha taasaa marka waxay keentay marar badan inuu dhicis noqdo mashruucii dhannaa ee la waday uu socon waayey idan mujtamaca isaga ah maanta dhibaatadaasaa ku dhacday waxaa inaga burburay magaalooyinkii aan dhisannay haddii hadda ka soo qaadno zaylac iyo berbera iyo bulaxaar iyo muqdisho iyo yani waxaa weeye in badan waxay dhisantay qarnigii koowaad ama kii labaad ee hijriyada yani markii qarnigii nabiga la soo bixiyey gudihiisa ay magaalooyinka qaarkood dhismeen intaa wixii la soo dhisayey iyo wixii soomaali cilmi lahayd waan weynay waan khasaarnay way wada dumeen kumaankum kitaab oo gacanta ku qornaa oo ay suuragal ahayd xadaaradeennii dhannaa taariikhdeeda inay tahay ayaan maanta waxba laga haynin insaankii soomaaliga ahaa nafsu baa khasaaray waxaa jira mid la dilo iyo mid dhaawaca iyo mid dhulka ka soo cararay iyo mid meelahaas ku sugaya sharci uu meel ku aado intaas uu qaybsan yahay marka marxaladan dhibaatadaa leh markii la rabo in laga sameeyo mashruuc islaami ah macnaha ay rabto aad iyo aad baad wada garanaysaan inayna sahlanayn ma sahlanoo dhibaatadaas buu ruux kasta dareemayaa ma sahlana maxaa jira ruuxa soomaaliga wuxuu aaminuu la'yahay maanta waa dhibaato culus wey wax is-aamina ma leh ma sahlana maxaa jira wax alla wixii uu ku soo tabci jiray iyo wixii uu hanti lahaa waa la dhaafiyey ma sahlana maxaa waxaa lagu soo qasbay inuu meesha yimaado isagoo hooyadii ka soo tegey oo aabbihii ka soo tegey oo walaalkii ka soo tegey oo mararka qaarkood carruurtii ka soo tegey islaantii ninkeeda ay ka soo tagtay ama iyadii intaasoo dhan baa la baday saa daraaddeed waxaa weeye inuu aamino xataa dad leh waxbaan wadnaa wanaaga aad iyo aad bay ugu adag tahay waxaana waa intiinan isu timid dadaal weyn baa lagu bixiyey laakiin dabaan inta kale ee dalka joogta ayaa idinka badan een imaanin waxaa dhici karta inuu is leeyahay wax wanaag wada oo soomaaliya ma jiraan su-aashaasaa jirta waa su-aal muhiima war yaa wanaag wada oon aaminaa buu ninku leeyahay caadi baa lagu weydiinaya su-aashaas oo adiga wadaadka sideen kugu aamini shalay tole wadaado badan baa dawladdii la socday wadaado badan baa waxay fatwoon reer hebel ha la dilo in badan baa hadda maanta waxay leeyihiin reer hebel xoolahooda ay xalaala sideen kugu aamini waa su-aal muhiima waa su-aal la rabo markaad fahamto dadku boogtoodu intay la eg tahay ayay dadku warkaaga dhegaysan karaan maxaa jira haddii aadan dhihin waa lagu dilay ilmaha yar marka la dilo madaxa loo salaaxo buu ilmeeyaa markaasaa murug haysaa daysa haddii marka dadkan aan si dhab ahaana loo ogaanin dhibaatada haysa waxaaba dhici karta inaan warba lagaa dhegaysanin oo adiguna aad meel ka shaxayso isagiina meel kalu jiraaba saas daraaddeed waxaa weye in la fahmo marxaladan aan marayno iyo dhibaatada ay leedahay waa wax aad iyo aad dan bay mashruucan u tahay ummadda soomaaliya o dhanna muhiim bay u tahay marxaladan iyada waxay naga rabtaa inaan fahamno waxa socda inaan fahamno
hadmigan ama kharaabkan hadda socdo wali aan istaagin maxaa jira wixiina burburiye wali wuu socdaa isma taagin meel kuma eka haddii marka aan fahmi weyno xubnahan iswa dhaafay iyo mu'amaradan iswa dhaaftay haddii aan fahmi weyno waxa way si aan u daaweyno barita ma garanayno waxaa ka mid ah waxa inoogu kaalmayn kara oo mashruucan marka u horeysa waxa uu kaalmayn waxaa ka mid ah inaad haysato war information macluumaad yani waa inaad og tahay waxa socda warkiisa waa inaad hayso marar fara badan ayaa waxaa jira in badan oo shabaabkeena ka mid ah oon subaxdii jarida dalkan ka soo baxad aan akhrisanaynin caadi waa badan soo maaha lacag ha ku khasaarinin jarida gaal maxaad ka akhrisan warka maxaad ka dhagaysan waaba zaahid bay noqdeenba in badan waxaa jirta aan hal nashra maalintii dhagaysanaynin baa jirta ma u malaynaysaa marka inaad gaaraysaan meelaha lagu ururiyo informationka ee caalamka si aad u ogaataan waxyaalaha laydinka qoray iyo waxa laydinka damacsan yahay iyo sida dadka meeshan idin keenay iyo meelaha badan aad kala joogtaan iyo kuwa gudaha idinku burburinaya waxa idinka rabaan waxay u baahan yihiin meelaha lagu ururiyo adduunka meelaha wax lagu ururiyaa inaad meelaha gaartaan baa la rabaa laakiin jariyadii u horreysay subaxdii soo baxaysayba haddaadan aqrinaynin oodan dhagaysanaynin warkii dalkan iyo meel kastood ku nooshahay waxaan u malaynayaa inaan meeshaa laydinka sugaynin waxay ka mid tahay waxyaalaha gafka aan galayno waad aragteen dalkan ruux kasta subaxdii wuxuu sugi jariyada soo baxa subaxdii soo saas maaha intaas maxaa jira wax muhiim ah in ugu yaalaan baa dhici karta adiga marka dadka qayb ka mid ah ayaa tahay waxaad u baahan tahay marka inaad la socoto kuwa gudaha joogana wararkooda inay la socdaan idan taas waxay naga kaalmaynaysaa waxyaalo fara badan oo gaf u dhici jiray ama macluumaad xumo ku dhici jiray inaan ka kabsanno oon ka nabadgalno oon ogaano wixii hareerahina ka socday warka ku saabsan oo dhan inaad si fiican loo ogaado mashruucan marka rab in la hirgeliyo waxaa ka mid ah dan buu leeyahay mashruucani dan buu leeyahay meel buu rabaa inuu gool ka dhaliyo meel buu u socdaa meel buu higsan maaha mashruuc caatifo ku dhisan maaha maxaa ummad dhan oo burburtay baa rabaa in dib loo soo celiyo marka wax yani laablakac iyo jacayl ma ku dhismayso idan waxyaalaha muhiimka waxaa ka mid ah in la ogaado si waliba daqiiqa oo aad iyo aad u cad ama la qeexo meesha himiladaada ay ku dhisan tahay ee meesha u socoto waa inaad ogaato taas wallahi hadday himiladaadu tahay iyo meesha u socoto hadday tahay keliya inaad noqdo multazim yani xagga salaada iyo taacada iyo xijaabka iyo garhka iyo intaa hadday tahay طبعا waxaa weeye dadaalkaad dhiibayso inta ama ku koobnaanaya laakiin haddii aad rabto inaad wax bedashado wax cusboonaysid طبعا intaa kuma koobanaysid maxaa yeelay intan waa meesha ka bilaamaysay ee waxa laga rabaa hadafka waa maxay waa khilaafatullahi fil ard yani waxa weeye kownkan ba adiga muslimka ah ayuu ilaahay ku dhiibay markaas wuxuu adaan ku dhiibna ee wad طبعا sharti baa ku xidhan wanaag inaad tahay saalix nin wanaagsan gabadh wanaagsan ilmo wanaagsan ruux wanaagsan baa sharti u ah ilaahay dadku u dhiibaya dad xun ma aha ilaahay wuxuu leeyahay walaqad katabna fi zaburi min bacdi dhikr ana alarda yarithuha cibaadiya saalixuun yani dadka wax dhaxlaya ee kownka raba in loo dhiibo waa dadkaa wanaagsan weeye ma dhici karto adigoon lagaa helin shuruud aad caalam ku hogaamin karto ood ummad ka hogaamin karto ma dhici karto in dawla lagu dhiibo abadan ilaahay baan yeelaynin ma lagu dhiibaayo idan hadafkaagu markuu yahay meesha aad tiigsanayso ood rabto adigu inaad wax bedasho ood rabto inaad khilaafatullahi fil ardi baa ina lagaa rabaaye inaad adigu samayso ood qaa'idu noqoto ummadaada laga bilaabo ummadaha jeeraan ku xigsiisid caalamka oo dhan himada ay saa tahay waxaa dhici karta ilaahay inuu ku kaalmay ilaahay والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يعني إلهي دتك الددالة كوا كلي أكلميا حيروح فاسقون إلهي بحر يوحرنين أما أن فهم سنين بماش أسعد إلهي وحبق رجال سكوفا لماي هاي أم باهنا دينك وحا إلهي أدي بيا هجانك وحا اللود ديبي دد هجامين كرا بس هدين لوايو إلهي سبحانه وتعالى إساك وكلا راسا إلهي سورة إساك مركا أدبراي لكن كو aan rumaysnayn oo munaafiqa ilaahay u dhibi maayo ku aan rumaysnayn oo mu'minana looma dhibay laana ma hogaamin karo markaas diinkan buu ceeb u soo jiidaya waxa laga rabo waa danta weyn idan waxa way iltizaamkan meesh ka bilaaban ugu dambaysana wuxuu ku dhamaan siyaadatul aalam ustaadiyatul aalam inaad adigu hogaamiso caalamka sidaas weesu ilaahay ka rabo sidaas miyaan u soconaa dhamaanteen Allahu a'lam
لكن واسيدة مناسبك وواجب كتاه الروح كسا والدين كان علاقة كله أما علمها هذا أما عامها هذا روح كسا والدين كان علاقة كله وربعين وحاجاجيو وحال لقربه وإنه مديس ماشى إيجادو شكي وحان لهين هدي ماشى أوسعته أين أكون مقنن أما سي هاي يكون هاي ميل فك أنت آذن فهم سنة ماشى أوسعته طريقة الحديث آيات كوبان جريسا ما سعون كرتيد لكن مركز تيكسن يسميه الفق والله انت ماشي انا كبلابي الى ان كان انت waxan wadi بعد ذلك الهي رضيه iyo jannadiisa ayaan ku beegsan waa meel fog oo tiigsanaysa way waxaad rabtaa inaad janno gasho Soomaa idan jannadii waxa lagu galayaa wax sahlan ma oo ku nabi kaleey salaatu salaam huffat aljannatu bil makarih ciyaar lagu ma galaya ka yaabin wax badan ka sokeeya waxa ka sokeeya ibtilaa'aad kaas imtixaanka weyn baa ka sokeeyo waa kan hadda aad ku jirtaan idinka wax kasta oo dalkan yaala hadii laga reebo inta xorriyaadka ah diinkiina way khilaafsan yihiin mushkilo waa ibtilaa idin haysata waaye waa imtixaanaad ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun imtixaankii hadda ku jirtaan annaga xagga jirana imtixaankii baan ku jirnaa ficlan ibtilaa walka imtixaankaasi ruux kasta siba ugu dhacaya saadaradeed waxa way in la fahmo hadafku inuu agtaada waadix ka yahay waa marka la rabo amalkeenu inuu guuleysto waa inaan ognahay meeshaan u socono inay tahay al-khilaafa khilaafatullah fi al-ardi waa inay tahay dalkeena inaan ku toosino islaam mashaakilkeena inaan ku xalino islaam cadaalad inaan ku xalino oo dhibaatada dadkeena aan daaweyno oo boogahaas la dhayo inkasta ha qaadato dariiq kale ma leh sidaa markay tahay waxa sahla aad iyo aad ugu sahlan dadka ka shaqeynaya saaxadan islaamka waxa u sahlan inay iyagii oo og dhibaatada intay leeg tahay iyo meesha u socdaan intay jirto fogitaankeeda inay u sabraan oo si fiican ay dhabarka ugu ritaan hawlahan ayaa suuragal ah laakiin markaas leedahay bari baad guuleysanaysaa bari baad celinaysaa oo rabto adiga dhowr maalmood gudahooda ama dhowr sano gudahood inaad wax ku hagaajisid waxa waa daalaysaa maxaa jira ummad dhowr boqol oo sano hoos socotay baan caalam islaami taariikhda marka la eego dhowr boqol oo sano ayaa hoos loo socday ugu dambaystii wax walba ka burburay dawlad baa way waayeen way kala tageen isticmaalkii uu qaybiyay burburka marka inta la eeg oo dhinac walba ah ciyaar ma aha inaad sanawaad yar ku soo celinaysid maana صح يعني بداية لي هاي وهذا حاوي تنسعته وحاوي وميل أي وحكي بالوضين وي وطلابه لكن ميل فوق بوسعتان نولش هذا وأين تكون لستو تكون بيس جريسو أو نولش هذا دم أدو ديار جريسو إلى أتكلم عنيسو إن أدو هذا يسبرنام في أسجع يعني تاس أيه وحي كنت سنة صار روح إني روح فهمي ماشي السعودي إيه إنه راهين ورا ميل سوكي إنه استاجو waxaa la hubaa inay dhibaatooyin badan ka hor imaan doonaan inta dariiqa socoto waxaa dhici karta in lagu dilo waxaa dhici karta in lagu xiro waxaa dhici karta in maarta sharciga laga kasal gareeyo waxaa dhici karta gabadha xijaabka in lagu dhibo waxaasoo dhan dabcan waa imtixaanaad idan dhibaatada ku hortaagan imisay la eg tahay yani dadka ducaadda ee dacwada ka shaqeeya waa inay isweydiiyaan mar kastaba khaasatan dal inagoo kale ah oo aynaan isweydiin karin dhibaatada in haysa imisay la eg tahay wax isweydiin kara ma leh maxaa jira farihi bay ka badatay haddana in la isku dayo mar kastaba dhibaatadu intay la eg tahay in wax laga ogaado oon isweydiiya maxaa ay hortaagan dagaal baa socda ahliya magaalooyinkeenii lacagteennii baa lagu burburiyey daayiradaheennii baa guryaheennii lagu burburiyey carruurteennii baa carruurteedii dishay waa caadi waxaasoo kolka mushkila ah ayaa jirta dagaal baa socda oo qabaa'ilkii baa la isku dhammaynayaa mushkiladu intay leeg tahay markaad darsido waxbaad ka ogaan quwada dibadeed maxay ku leedahay arrinteenna ma gudaheenna miyaa mushkiladu keliya mise waxaa jira layma kala ina soo galay oo waxaani waxa way wax laga baac mushtareenayo oo dad baa ku shaqaysanaya taas in la isweydiiyo mooryaanta iyo jirrida iyo daydaga iyo fadhi ku dirirka iyo kuwa maaragtay isbaarooyinka meelaha dhigtay kuwaas oo dhan maxay u dirirayaan inaad ogaato weey maxay waa mushkilad ku haysataa ma waxay u dirirayaan ficlan qabiil jacayl oo reerkiisa miyuu jecel yahay allahu aclam laakiin anu waxaan rumaysanahay inuu reer jacaylba u dirirayninba muxuu u dirirayaa ma naf jacayl ma isagaa dan ku qaba
وصورة قال ساسنا رميسنا هاي nin walba maalinta qadiisa la siiyo ninka qadiisi inuu dirirayo waxa marka dhici karta mushkiladeena in kamid ah hadii si fiican loo darso inay wax kala soo baxaanba oo ay soo baxdo waxan istili inayna Soomaali ahayn oo ina qabaa'ilka Soomaali ahayn oo dad yar oo dan wata iyo dad ay kireysteen kaliya inay isku dilayaan laba reer oo shalay colahayd maanta nabdi maxay labadina isku dilay baa nabday ma iska nabdayaan dadkeenu waa dad iska wanaagsan waxay marka u baahan yihiin dadka ducaadihi inay aad iyo aad u fahmaan dhibaatada haysata intay leegtahay waxaa kale quwal caalamiya ama quwadan adduunka maanta ka jirta meel walba fara way ku leedahay sheekada dadka muslimiinta mashaakilkoodu waa gudaha ayaan banaanka la sheegay waxba kama jiraan yani waxa weeye daliil waxa dhulkeena laxda kama maqna Yurub iyo America way ku jiraan say ugu jiraan calaqal iyo dhibaatada keeneen iyo intay keeni karaan in la ogaado waxay dan ugu jirtaa mashruucan aan wadno iyo dan ugu jirtaa ducaada fahmigoodan ugu jirtaa dadka saxwada ee shabaabka ayadan ugu jirtaa wax qabadkooda ugu dambeysana waa meesha furaha u noqon doonta waxyaalaha kale muhiimka oo ah markii aan ka sheekaynayno barnaamijkan isaga waxa kamida imkaanaadka aad u leedahay wax qabadkaaga taban waad ogaatay meesha u socotay masaafadii waad ogaatay dhibaatadii waad ogaatay waxaad u baahan tahay markii saadka aad qaadan lahayd in musaafir baad tahay ruuxi musaafir meel fog u socda wuxuu u baahan yahay inuuna iska dhaqaaqin xoolo ma haysataa quwa bashariya xoog dad ma haysataa waxaasoo dhan dabcan waa wax in la isweydiiyo u baahan taas macnaheedu ma aha ruuxu intuu fadhiisto waxa ku fikiraya ma aha laakiin saxaabadu intay socoto min khilaali dalika iyadoo socota waa in waxaas dad ay ku mashquul yihiin oo laga fikiro waxaasoo dhan si aynan meel cidla ugu banjarin marxaladan iyada ah shaki waxaan lahayn inay dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan in haystaan xoolal aan inay haysato dacwada dadka ducaada ee mashruucooda inay mashaakil haystaan inay masaafo aad u kala fog jiraan inay jiraan waxyaalo fara badan oo quwadii la rabay oo bashariga ahayd oo cilmi iyo saasoo kale inay yar tahay waxaasoo dhan waa wax jira laakiin dacwada isma taajin karaan ugu dambaysta yani wax dacwada u noqon kara caqabo maartay iyada hortaala ma aha ee waa wax laga gudbi karo saadaradeed waxa weeye ummad in la dhiso waxay u baahan tahay juhuud aad u fara badan oo la iska kaalmaysto juhuud la isu geeyo ummad kasta u baahan tahay waxyaalaha marka inoogu kaalmaynaya inaan ka gudubno marxaladan adag waxaa kamid ah in la iska kaalmaysto waxyaalo fara badan ayaa kamid ah waxaa kamid ah in la fahmo maanta dadka aad ugu hawshoon dacwada islaamka marka loo eego mujtamac intiisa kale waa inta yar weeye yani marka mujtamac laba loo qaybiyo dacwada inta ku hawshoon ee xil iska saarta iyo inta kale waxaa badan inta aan dan ka lahayn baa badan laakiin waxaa la hubaa dadka dacwada ku hawshoon ee islaamka hawshoon oo raba inay mashruuca hirgeliyaan numberkoodu inuu soo badanayo maalinta ka dambaysana taa waa la hubaa oo taban wax aad iyo aad u wanaagsan waxaa jira markaan meelaha marayno quwa bashariya xooga dadka markaan marayno iyo xoolaha mararka qaarkood waxaa inagu soo dhacaya dacwo iyo islaam marka laga hadlayo dawlad islaama iyo mashruuceeda marka laga hadlayo waxa aad iyo aad inoogu soo dhaca inay mas'uul ka yihiin culimada oo keli ah ayaa aad iyo aad inoogu soo dhacaysa waxaad maqlaysaa su'aalaha marka Soomaali gudaheeda laga weydiinayo war wadaadadu maxay u fadhiyaan waa su'aal wadaadadu maxay u fadhiyaan war wadaado ma wax qabataan war dadkii idinka idin sugi yani su'aalaha si caadi ah lagu weydiinaya taban ruuxa su'aasha weydiinaya wuxuu halmaansan yahay isagu inuu dawrkiisii gabay iyo halmaansan yahay isaga wadaadkana in laba waajib oo siman mararka qaarkood laga rabo ayuu halmaansan yahay ruux kasta oo diintan danaynaya oo iltizaam ku leh oo markuu ugu yar yahay waa muslim ala aqal cibaadaadkiisa caadigaana wuu sameeyaa mashruucan xubin buu ka yahay in kolka culimada xaggeeda loo xagliyo oo banooniga xagga culimada loo tuuro sax ma aha xal waa wax dadkoo dhan ka dhaxeeyo weey waxaa la hubaa dad fara badan
oo ay dhici karto inaynan diin saasa aqoonin kolka la tafsiir iyo xadiis iyo saas oo kale iyo siiro inay dhici karto inay ka wax qabad badan yihiin maanta dad badan oo culimo idan mashruuci wuxuu u baahan yahay in tafsiir laqbayo u baahan yahay fiqhi wax laqbayo u baahan yahay qaadi xukumi laha u baahan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay idaari maamule aad u tababaran ayuu u baahan yahay maamulo tababaran oo waliba khibrad leh ayuu u baahan yahay oo maamulo wixii yani administrationka ama idaarada ama maamulka waxa loo yaqaan af Soomaaliga waxa weeye waa wax aad iyo aad u qiimo badan idan waxa weeye sidoo maamulka ugu baahan yahay ayuu wuxuu u baahan yahay ruux aqoon-yahan oo dhaqaalaha si fiican u yaqaan aqoon-yahan waxaan ka wadaa wuxuu la socdaa dhaqaalaha caalamka iyo sidoo u socdo iyo mashaakilkiisa wuxuu yaqaanaa dhulkiisa waxa ku jira iyo sida lala soo bixi kara waxaas oo dhan buu yaqaanaa daraasa ku qaatay khibrad buu ku qaatay uu ka shaqeeyay idan ruuxa isaga ah ma kama maarmi kara maanta waxaan u baahannahay maadaama ay gaajo inaga dishay dad fara badan sanooyinkii aan soo dhaafnay dad beeraha aad iyo aad u yaqaana intuma marka waxay ka tirsan yihiin dadka mashruucan boqolkiiba boqol uu u baahan yahay bay ka tirsan yihiin baahida sheekha loo baahan yahay waa baahi muhiim ah maxaa jira alxalaal walxaraam iyo ina kala baraa sheekhu waa sidaa macnaheedu tama waa meesha ay wax ka bilaabanayeen weeye alxalaal walxaraam waa meesha wax ka bilaabanayeen nas baa sheegay xadiis baa sheegay iska ilaali shubhadan waxaan bidca weydiin kuma soo aroorin waxa nusuustaa garan waa ruux akhristay weeye waa ruux akhristay laakiin in badan nusuustaa ka mid ah marka loo yimaado in la fuliyo waxay u baahan mid kale oon sheekha ahayn mid kale u baahan tahay yani marka laga sheekaynayo thamaraadka iyo geeduusa aayaadka qur-aanka badan kusoo arooray beer laga sheekayn ama cilmi fare laga sheekayn ama laga sheekayn culuum kale oo takhtarnimada ah waxaasna marka laga sheekayn waxay u baahan tahay ninka laqbayn ruuxaan ahayn oo isagu bartay oo macmalintiis ag taagay isagu si fiican u yaqaanay u baahan tahay marka la isku kaba labadooda marka sheekhii naskii yaqaanay iyo ninkii kale ee waxaan isagu camaliyan u bartay inta kale ee hawsha u baahan labadaa marka la isku kabo ayaa mashruucan yuu hana qaadi karaa mashruucan wuxuu hana qaadi karaa keliya marka ummadda xooggeedoo dhan la isu keeno haddii marka la kala soco la yidhaahdo sheekh iyo shariif iyo inta diinta maarata iyagu nusuusteeda taqaana keliyaha lagu soo koobo laguma gadinayo maxaa jira waa wax ilaahay ugu talagalay in quwada oo dhan la isu geeyo mithaal ahaan haddii la yidhaahdo waxaad ogsoon tihiin alkhilaafa araashida dowladdii muslimka ee nabi kolkuu dhintay calayhi salaatu wasalaam la dhisay waxay dareentay dhexda markay marayso ayaa waxay dareentay inay aad iyo aad ugu baahan tahay ciidan badeed oo ilaaliya badaha dadka muslimiinta ay leeyihiin ama dadka dacwada sii gaadhsiiya oo dowladdii ruum la dhihi jiray oo maarata aad u xoog badnayd ay iskaga celiyaan tay marka haddaan idhaahdo safiinadii nabi nuux waa taqaanaa qur-aanka ku jirtaa maraakiibta intaasa laga sheekeeyey haddaan idhaha sheekhii naska laqbaynayay safiino keliga ha sameyn suuragal maaha maxaa jira sheekhani qayb buu mujtamac ka yahay waxaa marka loo baahanya quwadii mujtamac oo dhan baa meesha isugu imaanaysa dowlad islaamiya waxay samaysay waxay ka faa'iidaysatay gaaladii dalka deganayd iyo kuwii hadda soo islaamay iyo wixii oo dhan markaasaa iskandariya iyo lubnaan xeebaha hadda lubnaan oo dhan intaas waxaa laga sameeyey meelo lagu sameeyo doomo waaweyn iyo maraakiib dagaal iyo kuwo baac mushtariya lagu sameeyey taban waxaa waye haddii ayna heli lahayn maalan banaanka ay waxay ka keensan lahaayeen khubaro kale soo maha oo u samaysa waxan intay soo kireystaan lacag siiyaan ayay u samayn lahaayeen maxaa weeye mujtamaca xooggiisa oo dhan bulshada xooggeeda in laysu ururiya u baahan tahay waxaa keenay waxyaalaha in mujtamacu kolba isku xagliyo oo hadda dawlad marka la yidhaahdo 100 sano oo soo dhaafnay dawlad marka la yidhaahdo yaa ima inuu nin isticmaara ninkii cadaaya dalku wisan jiray isticmaar algharbi inuu yahay ninka xukumaya haddii kale mid isagu soo tababaray ayaa xukumaya marka dawlad marka la yidhaahdo sheekhu maba leenka kuma jirin maxay waa laga saaray xoog baa laga saaray waa laga fogeeyey waxaa leenka laga saaray odaygii dhaqanka yaqaanay ee dadka ku kala waday maslaxada waxay ula muuqato isna waa laga saaray markaas reer galbeedku waxay fuliyeen barnaamijkoodii ahaa kaliya waxay wataan inuu socdo dad marka iyagu ay soo tababareen kaliya wax u dhiiban jireen maanta marka waxaan leenahay tabaqada iyada ee dalka soo xukumi jirtay
ama ha ku mahadsanaadeen ama ha ku inkaaraadeen ee soo maray xukunka 100 sano ah wixii nool iyo tabaqada cusub ee hadda soo kacday oo in fara badani ay culumtaas si fiican u taqaano in badanna culum sharciya si fiican u taqaano laakiin rabta inay isbedel samayso dalka waxaa laabudda inay iskaalmaystaan oo la isku xidho waa wax laga maarmaana in la isku xidho waa laga maarmaana markaan rabno inaan Soomaalinimo dhisno taa marka waxay keenaysaa inaan la isku xaglinin oo la dhihin xukunka kol aan la dhihin niman cilmaaniyiina iska leh oo ogoleen aakhiro iyo diin iyo waxaas aan ogoleen marra aan la dhihin wadaad baa iska leh marka mujtamaceeni markaas qayb halisa ayuu ku jiraa taasna waxa weeye islaamku muuna aqoonin waa ogsoontiin asxaabu rasuulillaahi sheekh iyo sheekh la'aan iyo waxa ma kala lahayn maxaa la dhihi jiray asxaabu rasuulillah kaliya waxay ku soo bixi jireen waxa wanaagsan ay sameeyaan markaas waxa la dhihi almuhaajiruun waa shaqo ay qabteen waaye wax kale miyaa ku jira meeshaas way soo islaameen xabasha u haajireen markaas dina madiina u haajireen almuhaajiruun baa loo bixi dadka ilaahay dartii u haajiray way al-ansaar waa dadkii nabiga soo dhaweeyay iyo asxaabu rasuulillaahi oo wax walba u huray bay ahaayeen waxaad maqli mararka qaarkood bay'atul aqaba waa 1200 bay'atul ridwaan 1200 oo ruux baa hal mar maaratay ayaa magaca qaatay marka waxay qabtaan baa loo magacaabi jiray yani haddii loo baahdo in sharaf loo yeelo laakiin sheekh abubakar iyo sheekh cumar iyo miyaan maqlay iyo sheekh Uthman ibn Affan iyo miyaad maqasheen wali waa aamuseen waa maqasheen Soomaha wax maqlay male wax maqlay male maxaa jira way sinaayeen laakiin waxaa la ogaa ruuxii cilmiga waa la yaqaanaa fatwada yani ruuxa yaqaana waa la og yahay ninka caalima waa la yaqaanaa laakiin isagoo magaciisa leh sida Abu Hurayra oo kale iyo baa la aadi markaas la weydiin oo jawaab hawlahana dhammaan way ka qayb gali jireen nin sheekho meel fadhiyana ma lahayn ku kala meel fadhiyo dhammaan way ka qayb qaadan jireen oo waxa weeye beertana way wada falan jireen tijaarada way ku wada jireen haddii kolka loo garto qayb takhasus in la sameeyo dhib ma leh laakiin mid walba hawshu markaa uu dhinac ka qabanaya wax mashaakil leeyahay taasina ma leh laakiin kala qaybsankana wadaad iyo wadaad la'aan waxaa dhici karta dalkeena inayna dan ugu jirin saa daraadeed meesha iyada markaan ka sheekaynayno xoogga bini aadamka ee maanta u baahanahay waa dadka oo dhan sida aan loo kala soocaynin marka hawsha islaamka laga hadlayo ragga iyo haweenka waxaa jira mid walba dawr mucayyana ayuu ku leeyahay ama dawr fiican ayuu ku leeyahay marka loo yimaado waxyaalaha run ahaan aad iyo aad aan ugu baahannahay kolka la rabo waxaa in la fuliyo waa tacaawunkaas dadkoo dhan inay isku meel ay waxooda ku shubo laakiin waxaa muhiima marka u horeysa intaynaan wax kale u gelin waa marka la rabo inaan ummad Soomaaliyeed dib u habayno in laga heshiiyo haddii la rabo mashruucan uu hirgalo istaraatiijiyadiisuna ay ku dhisan tahay qodobka ugu muhiimsan waxa weeye waa mas'alada ku saabsan waxaan ku soconayno maxaa yeelay dawladaha adduunka oo dhan mid walba waxbaa lagu saleeyay waxbay ku salaysan tahay waxbaa lagu saleeyay qawaaniin bay degsadeen waa caadi taas heshiis lagu yahay taasaa lagu kala socdaa innaga marka shacbigeena maanta wuxuu u baahan yahay in murankiisan maanta taagan iyo kala qaybsankiisa iyo dhibaatadiisa in laga murmo caadi wajaadilhum billati ahsan insha Allah muran aan la isku dilin oo kii jadalka maaratay laynooga diga aan ahayn kaasa u baahan yahay oo dood cilmiyeed meel kasta laga furo maxaydan inoogu jirtaa ma inaan mushkiladeena iska badayna dan ku jirtaa ma waxaydan inoogu jirtaa qawaaniintii hore ee ina soo baabisay ma ku noqonaa oo tajribadii ma soo bilownaa 1960 miyaan soo bilownaa maya waxaa dhigata inuu mid kale yidhaahdo maya inaan soo bilaabina tajribo cusub aan samayno ma islaam baan ku dhaqanaayoo qaanuunka aan dooranayno ma islaam baan ka dhignaa intiina meesha fadhida islaam jacayl baa ina wada keenay inteena hadda meesha joogta laakiin in badan oo kale ayaa waxaa iska jirta iska aamusan ama meeshan ha ka soo qayb galeen ama ina ka soo qayb galin shirarka sidan oo kale ah mararka qaarkood ma yimaadaan laakiin tacliin hore ayaa ku tagtay oo waxaa laga raariday islaamku inaan waxba la isku xukumi karin inuu yahay diin qallafsan oo saas oo kale dadku gacmaha gogooya waxaasaa loogu sheekay iyagoo yar wixii aan madaxooda galay daban islaam mayna baranin oo waxaa dhici karta dadka cilmiga leh ee culimadii inay meeshaas mas'uuliyadoodii gabeen baa dhici karta
taas kolka waxaa weeye in marka hore laga heshiiyo mas'alada marka ku saabsan ummaddu maxay wax ku dhisi طبعا أنا waxaan rumaysanahay in alislaam lagu xaliyo kulligiina saas rumaysantiin laakiin si aan loo dhihin waxbaa la isku jujuubay iyo waxbaa la isku qasbay in dadka loo furo xorriya inay dadku ka murmaan waxyaalahan oo kale oo ayna marna dhicin ruux meel uu ku wada aadan ogeyn inaad raacdo marnaba hadduu sheekh yahay raacin hadduu shariif yahay raacin hadduu yahay askari ha raacin siyaasi hadduu cilmaani yahay raacin waa inaad iska hubiso meesha u socoto mise waa iska dabagalaa maya lama dabagalaayo maxaa jira dadkii aan dabagallay waa ogeen wixii inaga raacay waad ogeedeen waa kii waddadii caddayd aan cagta saarnay say ku dambaysayna waxaan u malaynay isaga sheekayn maayo wasiirkii baa ku heesaya mutacalliq baa ku heesaya sheekhii wuu ku heesi waa lagu wada qasbay ugu dambayntii dhammaan waddadii caddayd cagta saarta ee ku caraabi caynaanka hay weligaa hay saasay ku dambaysay laakiin waxay inaga tuurtay haawiyadan maanta aan ku jirray inaga tuurtay haddii marka maalintaa la dhihi lahaa war ku caraabin mayna bal u kaadi maxamed siyaad bar haddii la dhihi lahaa askartii haddii la dhihi lahaa kuwii golaha sare haddii la dhihi lahaa ma dhacdeen tani kollayna hadda dariibo xoog laan bixinay intan maynaan bixineen shaki male taas intanoo khasaarihii inama soo gaareen markay u badan tahay dad yar baa la xiri lahaa in yar waa la dili lahaa ugu dambaystana dadweynuhu markay kacaan ay waxaa diidaan waa la joojin lahaa haddii marka aan la furin dood oo dadka meesha ay u socdaan aan si fiican loo ogaanin waxaa suuragala in marka la is afduubaa suuragala ama askari ha ku afduubo ama sheekh ha ku afduubo ani ninkii afduubaba kii kale weeye ma kala jeceliyo abadan in islaam lagu afduubana ma rabo in cilmaaniyan lagu afduubana ma rabo waxaan rabaa islaamka naftiisa ruuxan sheeganay inaan iska hubiyo oo inaa war waxan makaa dhabba oo maxaa u daliila oo xaggee u socotaa oo adu maxaad qabataa mise waxaa weeye sidii laynoogu khudbayn jiray waa iyada tana waa mid kale taas marka waxay keenaysaa haddii dhibeedkaa la furo oo si niya samaana loo furo oo xataa ninka yidhaha anu islaamin laysu xukmi karaa ma qabo yaan la gaalaynin maxaa jira ma yaqaano waljaahilu yucallam ruuxa jaahilka in wax la baro wax kale oo furan meeshaa ma leh maxaa jira in lagu qanciyo unbuu u baahan yahay afduubkaasna in mujtamaca mashruucan in afduubka laga ilaaliyo u baahan yahay in badan ayaa mashruuca fuuli doonta oyna ka dhab ahayn in badan ayaa maanta ku gabyaysa oo islaam keliyaan rabnaa leh dhammaantood waan soo dhawaynaynaa haddaan nahay dadka soomaaliyeed guud ahaan waan soo dhawaynaynaa ruux kastoo yidhaha mashruucan baa saxa ama islaam baa la isku xukumi karaa waan soo dhawaynaynaa laakiin haddana yuuna noqonin mid isaga naftiisa ama mawjad la fuulo ama tu la isku afduubo yayna marna noqonin taas waxaan ka wadaa dadka soomaaliya oo maanta mashaakil baan dhex taagan haddii aynan si xoog la uga fikirin meesha iyada ah waxaa dhici karta inay khilaaf kala dhaliso mushkilo kala dhaliso qaabka xukunka iyo qaabka islaamnimada iyo hadday axsaab badan jiri iyo haddayna jiraynin waxaasoo dhan mashruucani kama soo horjeedo maxaa jira mashruucan ma u malaynaya hadda jiilkii sayidina abubakr radi allahu canhu iyo alkhilaafa araashida mafaahiimta iyada ah iyo taban taas maanta ma joogna meeshaas waxaan taagannahay khasaaraha ugu yar inaan wax ku caymin karnaan taagannahay bas yani khasaaro waan ku jirnaa marka maxaa ugu yaran wax ku caymin karnaa wey meesha su-aashu waa intaas idan hadday keento in dadku ay ka murmaan ama la isku khilaafo yaan lala yaabin maxaa jira wayba isdisho ummaddu mogta ummaddeena marka waxaan rabaa maanta inaan soo gaadhsiino meel ay ku hadasho oyna isku dilin haddii marka hadalka laga xiro mar kale oo magac diin lagu xiro ama ku maaragtay lagu xiro jabhadeed ama ku qabiil haddii afka laga duubo mar kale ayay wixii soo noqon doonaan taas kolka waxaa weye in aad iyo aad ay uga digtoonaadaan dadka mashruucan wada iyo dadka taageersan intuba oyna u fahmin marnaba in aan la hadli karin maxaa jira diinkan ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa xikmadiisa og haddana xorriye ayuu ku bilowday inaan gaalnimadii baa laysu daayey in gaal la ahaadaa laysu daayey laa ikraha fi diin dad gaalaa ayaa la ixtiraamay oo dhulkoodii deganaa oo saa ku jira oo maanta quruma caadi laa ikraha fi diin innagoo kolka wada muslima haddaan muranka isu ogolaan weyno oon ka niqaashi weyno oon dood cilmada furi weyno waxaa weeye macnaa daalika weli waxaynaan fahmin dhibaatadeenu intay la eg tahay